أفكات الدوداية وحاوي وحن كبرتي ميديها عاوي ورئيس الله يفرط لكن فرصة داس أفكاتهاس واجوغي دلك وحلاقي أبا شغلاس إنه قبل جري سنة بدن فني كان فرصة وحسيي ده شباب كي ولا جري قرحية ويرادي فرصة وحقوقه هذا سنة كلا صوت والدولة دان شغالة قوتي كمتها لكن ما أنت لقوا قبوا الله وداوع ملا قوم كأجيب لها لماذا قلت لي ولو شقي مرك الدولة دي كان دليرة كله يا أبوك تدود هاي فرصة حسالة بحي أول نكى محكمة ده يستاهل ما راح نقول فنجر قرصورياش وأوكتين مرك الدولة دي سيدا سود داري سري ومدحوينه قرقي عصادي ودور كجرو على إنك الربع إن أتقرب استاج سميسان وحير بحري ما نعرف بوك سيدا لو تعبي هاي وسيدا الشنيمة دي dad badan dibadda waan ku soo arkay waxa muuqata marka laba mid weey aniga aragtidayda in marketing fiican team balaayaha heleen oo marketing fiican loo sameeyay iyo in buugu sidiisaba u qiimihiisu aad u badan yahay labada xaaladoodba waa laba xaaladood aad u fiican marka waxaan leeyahay hambalyo Yusuf Cabdullaahi runtii nin dhalinyaro ah oo contribution maktabadda Soomaaliya contribution fiican wax ku soo kordhiyay library-ga Soomaalida guud ahaan afka Soomaaliga wax ku qora marka waa ku mahadsan tahay tani waa bilow aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa haddii aad markii koowaad soo saartay buuggan inaad horay u socon doontid abukaate iyo garyaqaan ayaa tahay runtii anigu waan akhriyay 50 page meelahaasaan ka akhriyay waqti badan ma helin xalan helay koobi ka mid ah runtii aad buu u rakiban yahay intii wasiir ilkajiir uu sheegay mararka qaarkood waxaan in la naqdiya iska fiican abukaatu dudayna waa jooga meeshaan intii Soomaaliga runtii anaga dadka Soomaaliga wax ku bartaan hayn dugsiyada Soomaaliga ka baxay af Soomaaliga wax lagu dhigo marka yar oo xagga Soomaaliga ayaa ku jira kaas waxaan rajaynayaa dabcadda xigta kan in la sixi doono guud ahaanna dhalinyarada wax baranaysa jaamacadaha iyo qof kastoo raba qasam maahan qofku garsoore inuu noqdo ama maxkamad aadee qof kastoo raba inuu fieldigaas wax ka ogaado wax ka barto saxafiyiinta ka mid ah qof kasta ka mid ah oo raba inuu wuxuun korsado buugan aad iyo aad buu anfacayaa marka waxaan baliyeenayaa saaxiibkeen Nuux oo runtii barbaarinta ninkan dhalinyarada ah garyaqaanka barbaarintiisa iyo soo saaristiisa qayb badan ku lahaan isagana runtii oo caaway isagu halka nagu casuumay habdhowraha baarlamaanka weeye aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad soo saartay runtii dad badan baa dadkay maal gashadeen aysan nacfi badan yeelan laakiin waxaad soo saartay nin bulshada nacfi u leh asaguna isku leh bulshadana wax ku soo celiyay intaas ka sokow garsoor hadii la joogo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo maxkamadda iyo garsoorka dalka Soomaaliya inkastoo wasiirkii uu joogo laakiin meel kastoo la tago oo wuxuun cadaalad ku saabsan iyo garsoor hadda ninkaas oo abukaata dudaaye waxa weeye waxaan ka bartay meediha caawa ugu horeysa live horta laakiin fursadaas abukaatahaas waa joogay dalka waxa laga yaabaa shaqadaas inuu qaban jiray sanado badan fursadda laakiin maxkamadda gobolka Banaadir fursad weyn bay bixisay waliba barnaamijka live-ka ayaa fursadaas bixiyay oo ummadda in hortooda lagu bar kaysaskii tirada badnaa ay u galayay oo
كدوداي إن هرتو ذا وحلو برحو أي محكمة أول يالته مركز قرصور كأني runtii wuu soo xoogaystay meel fiican buuna yimid waxaana soo baxay dee abukaatayaal sidaas oo kale ku soo baxay oo mawaahibtoodii iyo aqoontoodii bannaanka soo dhigay ku difaacay ku guulaystay kiisaskii intoodii badnaa marka waa hambaliyo maxkamadeena iyo abukaata dudaay waxaa jirta xadiis baan kusoo gabagabeynaya alqudaatu halaatha abu tirmidhi rawaahu tirmidhi القضاة ثلاثة 2 في النار و1 في الجنة قرصورياش وصدح لبو أهل النار تقليا ولو أيها الهور مرسي كي جنة لما صور مرسي و1 في الجنة من جنة قليا كان جنة قليا وحوه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة قف أقول له الله قرنكتي صحقة أرنتا سكو حكميي أقونتي سويسين يسي عدالة إنفلونسيجي دبدو أوسن سامينين أودي دول النما إيسن سامينين سيداس انتكو حكمي سيداس عدالة دول حكمي فهو في الجنة قفكاس جنة كريه لابد النار تكون صهرت ورجل عرف الحق كان كلو لتكويا وحوايا قالنا كيس كوجدا لكن سامين بالويش لا له شاهد وحكى لها سي قلدم بو حكميي كاس نار تحقيدا لا ادي كان كله ما هان ميد وحبا علمي ومله meel baa la iska soo fariisiyay wax uu la socdo ma jirto haddana asagoon cilmi lahayn buu wax gardaraa oo xaqdaraa xukuma kaasna jannada laga shalway marka garsoorayaasheena waxaan rabnaa ama kuwa maxkamadaha jooga ha ahaato ama kuwa kale ha ahaadee in aad maaragtay cadaaladda lagu dhawaado oo qofkii cadaaladda u dhawaada bulshadu way maaragtay u jeedaa waana difaacayaan markay arkaanna waa qadarinayaan kaysaska maxkamadaha yaalana waa ugu yeelanayaan marka runtii garsoorayaasha kalena intaas ayaan ku baraarujinaya waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro ninkan dhalinyaro badan oo waxaa jirta lunsan oo bulshada dhibaato ku soo celisay qarax iyo dil iyo dhibaato ku soo celisay oo kooxda khawaarijta ay ugu horeeyaan dhalinyaradii laakiin sida fiican loo barbaariyay waa kuwana caaway waxay soo saarayaan buugaag qaarkood waxay soo saarayaan waxyaalo tiro badan oo bulshada nacfi ku leh marka waxaan rabnaa inaan si wada jira fariintaas meel kastana waa ka gudbiyaa furuntan ayaamahan baan ku jiray haddaad ila yaabtaan buuggii sahayda ayuu al-shabaab ku dhex darayaa laydhihi war kuwaas waa cayar ninkan fursadda waxaa siiyey dee shabaabkii waa laga eriyey qarxyadii waa yaraaday fursadu wax ku qoro hale sanadkii la soo dhaaf oo dowladdan shaqaday qabatay ka mid tahay laakiin maanta lug buu ka go'naan lahaa waa dhaawacmi lahaa goonka ajabi lahaa dhibaata qabsan lahay waa loo shaqeeyey marka dowladdii ninkan dhalinyarada iyo dhalinyarada kale iyo abukaata dudaayey fursadahaasaa la bixiyey awal ninkii maxkamadda istaagay madaxa lagu dhufan jiray garsoorayaashu waa ogtiin marka dowladdii sidaas u dadaalaysay oo madaxweynihii garkii casaaday oo duurka uu ku jiro waxaa laydinka rabaa inaad garab istaag samaysaan wax yar baa haray dhalinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo ibdaacaan iyo hal abuurkan lahaa waxay joogaan jilib qaar ceelbuur bay joogaan qaar jamamay joogaan qaar meelo daran bay joogaan in laga soo saaray u baahan yahin dhalinyaradaas ila waa dhalinyaradeenii ninkii dhigiisa ahaa oo jilib joogay waa xayiran ama gabadhii halkaasi ku xayirantaa wax afduuban maahan wax kala arki mayso ama asoo arki maayo marka dowladdana hala garab istaago si guudna ololaha lagu ciribtirayo
هلو قرب استاغو وما سنتين وحن قاضي يعني برك شري لواتن بوك وما سنتين